kumanayaal kun oo qof oo ku barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa dhibaato waxay ku haysataa qaybo kamid ah meelihii ay u barakaceen ee ay naftooda la baxsadeen degmada Carmo ee gobolka Bari oo kamid ah meelaha dadkaasi ay tageen ayaa waxa ku haysata dhibaato wariye Maxamed Xasan Dhalo oo sadcaal ku tagay halkaasi ayaa warbixintan inoo soo diray qoyskani waxa ay la soo qaxeen gabdhahan dhaawac soo gaaray oo aan wali helin daryeel ku filan kadib markii ay hal goob ku wada dhinteen saddex ka mid ah carruurtooda waxa ku dhacay wixii markuu soo ugu dhacay wixii dhanti dhacday aan soo cararay kuwa yar aan dhaleesa isu dabarcaan waa iska ceyriyay waxa dhagal guriga banaanka dasa uu soo baxay albaab kurtiisa walaalka yaab yaalaba bis waxa u maleynaa marka xabada dadka markay ku dhacdo waxa la waa gambadaan ma ogtahay dhulka la seexdaa inuu iska jiftay aan mooday baan ilaa barbarkii dhaawac uga dhacay dhan oo u jifaasi u dhacay bis waa dul maray halkaas sa u firi gabadha yareedo nagu soo cirarka nagu soo qaxan gabadhoodi baa halka taalo maskaxda faq kii yaraayo hadan dhinacaas oo kale u tiyaalo mid walaasheed dan sa garabka uga soo jiidaysan arkay kanna way ku dhacday halkii yaa baroor diiqsi qaan guriga dhan wada dhiig Boosaaso oo saddex bari si joogto ah xabadi uga dhacaysay ayaa sababtay in dad badan ka barakacaan guryahooda sida kuwan ku sugan Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ilaa 6 goobood ayaa dadka la isugu geeyay degmadan Carmo oo 100 kiiloomitir u jirta magaalada Boosaaso dadkaas oo lagu qiyaasay in ay yihiin 10,000 oo qoys waa dadkii barakacayaasha ahaa ee ku noolaa kaamanka magaalada Boosaaso kuwaasi oo ka soo cararay dagaalkii 3 bari ka socday magaaladaasi gaajada iyo dhaxanta waxa uga daran kharaadka iyadoo ay biyo yaraani ka jirto deegaankan oo barkadihii ay sida gabaabs u yihiin halka ay dadku yimaadeen waa Carmo oo ah ceelka dheer hooyooyin waxa la kulanay shalay oo kale intii la soo qalay iyagoo qalan isbitaaladii ka soo cararay oo dhaawaca oo isbitaalka jiifinay waxa la kulanoo kale caruur yar oo iyagoo nafaqo darro ah isbitaalka lagu hayay oo iyagna boogo wada la oo isbitaalka ku jiifay oo la soo qaxeen hooyooyinkii oo tabcaansan oo haddana ku dhacay intuu biyo la'aan iyo waxyaabo badan intii ku dhaceen shuban ku beermay oo shubankiina uu ku batay oo faleembooyin u baahan oo faleembadii xataa xidid aanu kaga xidhnaan weynay oo qayb aan gudbinay waxaa kaloo kaysaskii ugu darnaa ay ahaayeen hooyooyin gidaarre intii laga soo qaaday iyagoo foolanaya oo dadka magaalooyinka jooga soo ururiyeen magaalada dadka jooga oo xarunta la keenay oo qayb aan gudbinay oo aanu ku dhali karin halkan oo communication ah kuwana ay normal u dhaleen oo hadda xarunta MCH-ka ay joogaan dadkan duruufaha wajahaya uma diyaarsana waxay halkan ku sii joogaan Boosaaso ay ka soo barakaceenna wali xal rasmi ah lagama gaarin arrintii xabadu ka dhalatay Maxamed Xasan Dhalo Carmo